Riyahan dambe baraha bulshada waxaa ku soo badanaya dhalinyaro reaction ama falcelin ka bixisa heesaha ay soo saaraan fanaaniinta ama muuqaalada ay soo duubaan dadka caanka ah. walow taasi ay jirto ay mar quraacan baxaan iyagoo aanan la garanaynin taariikhdoodii hore. Dirisle Cabdi waxa uu ka mid yahay dhalinta ku nool qurbaha oo si weyn ugu dhex muuqda barta YouTube-ka. Cumar Kirish oo ah nin ay isku shaqo yihiin ayaa ka waramaya sida Dirisle Cabdi uu ku soo galay YouTube-ka. adoo comedy sameynaya ma soo gelin waxa soo gashay qof hooyadayo kala adoo le waa wareysana wariimatid okay waa ku yeelay waa wareysana ma hano maxaa weydiisay marka waxyaaba weydiinaysa maxay ahayd qofkana magaceeda waxa la yiraahdaa maama milyuun ma ahan farxiyo yiriisay maama milyuun waa hooyo waxa weydiinaysid maxay yihiin marka qof hooyada oo kala ayaa waxa weydiinaysaa meeqanina ku soo furay. waa kan Cumar Kirish oo mar kale ka sheekeynaya sida iyo waxa uu ku soo canbaxay Dirisle Cabdi. adiga waxa lagu bartay goordhow waxa lagu bartayna dabacasaar imaam milyuun dabacasaar khadku ka baxay waa la waayay Facebook iyo YouTube-ka adoo kale malaa u nacay iska tagay maam milyuun dhowr video ee janaalkaada ka saartay sida awgeed videoyadeeda faraha ka qaaday. haddaba su'aasha la isweydiinayo ayaa waxay tahay Dirisle Cabdi waa nin caankee ah shaati iskama bedelo adiga intaad jirtay. Cumar Kirish oo barta YouTube-ka kula ficiltama Dirisle ayaa codsi u jeediyay Dirisle. waxaan ka codsanayaa please Sharbaweyn waxaa ka codsanaa maadaama aniga magacayga King CK afkaaga uu ka soo baxayo ama Cumar Kirish please waa ku tuuga iga soo. ugu dambeyn Dirisle ayaa dadka dhaliila waxa ay ku tilmaamaan in aanu ba ku hadli karin af Soomaali sax ah. af Soomaaliga ba adigu kugu yarbe af Soomaaligi waay luqad kale ma af Soomaaliga yaa ku dhibay